Maamul goboleedka Puntland ayaa war ka soo saaray qoraal dhawaan ka soo baxay dowladda federaalk ee Soomaaliya kaasoo lagu sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed howlgallo ka dhan ah Al-shabaab ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah deegaanada Puntland isla markaasna lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-shabaab. Qoraalka ka soo baxay Puntland ayaa guud ahaanba lagu beeniyay in howlgallo amni ciidamada dowladdu ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah deegaanada Puntland. War-saxaafadeedka ka soo baxay Puntland ayaa u qornaa sida tan: Wasaaradda Warfaafinta Dowladda Puntland waxay bulshada Puntland ee guud ahaanba Soomaaliya iyo adduunkaba la wadaagaysaa in wax kama jiraan ay tahay wararka ay faafisay dowladda federaalk ee Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda warfaafinta, kaasoo ay ku sheegeen in ciidanka SNA-du ay howlgallo amni ka fuliyeen deegaanada calaamadow ee Puntland. Dowladda Puntland amnigeeda iyada ayaa ka shaqeynaysa ayaa lagu yiri, waxaana deegaanadeeda calaamadow ku sugan ciidanka difaaca Puntland. Sidaasi daraaddeed ma jirto wax ciidan ah oo SNA-du ka howlgala ama sidoo kale ku sugan Puntland. Dowladda Puntland ee Soomaaliyeed waxay sidoo kale u taagan tahay ayaa lagu soo gabagabeeyay in dalka laga ciribtiro argagixisada. Si kastaba ha noqotee, qoraalka ka soo baxay Puntland ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk ee Soomaaliya ay baahisay qoraal ay ku sheegaysay in xubno ka tirsan Al-shabaab lagu beegsaday deegaanada Puntland kadib howlgal ay fuliyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka. Waxaana dhinaca kale sidoo kale qoraalka Puntland oo kusoo beegmaya xilli weli ay taagan tahay xiisada u dhexeysa dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo sidoo kale Puntland, kaasoo ilaa hadda aan xal laga gaarin, isla markaasna muddooyinkii ugu dambeysay oo ahaa mid cirkaasi isku sii shareerayay xiisadaha ka dhexeeya dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Puntland uu hogaamiyey Siciid Cabdullaahi Deni.